sababtuna waxay tahay horta middan waa mid ciida muslimiinta dhan ay ka wada siman yihiin midda i raacsaniyaa waxay tahay waa maalin ay ii dhammaatay daraasadeydii tanabiga ahayd oo aan ka bogay macadka imaamu maalik alislaami ee magaalada gaarisa ku yaallo marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa ilaah subxaanahu wa tacaala asagayna mahad dhammaanteeda u sugnaatay allahaasoo iga xijaabay 4 sano aan macadka akhrisanaya caafimaad darro iyo caqabado walbo ardayga ka hor imaani kara allahaas ayaa mahad iskale midda xigtay waxaan halkan ooga mahadnaqayaa labadeydii waalid abu xamza shariif xamdi xasan iyo umu xamza oo hodan aadam ah labadeydii waalid ee garabkayga taagnaa ilaa ilaah subxaanahu wa tacaala iga soo gaarsiiyey marxaladani midda xigtay waxaan halkan ooga mahadnaqayaa mahadnaq aad iyo aad u ballaaran culimada macadka imaamu maalik alislaami culimadaasoo 4 sano i dul taagnaa ilana dul taagnaa aqoontiyo cilmigan ugu khidmayni lahaa diinta islaamka culimadaasoonan iga hakranin amaanan igala bakhaylin wax juhdi ah in ay igu bixiyaan ilaah subxaanahu wa tacaalana waxaan idin kaga baryayaa xaajooyinkiina bisuhuulatin wasaniyatin in uu idinku gudaaye hoygiinana jannatulfirdows ilaah subxaanahu wa tacaala in uu ka yeelo intaa ka gadaal midda xigtaaya waxay tahay waa farxadda ciidda oo muslimiinta dhammaan ay ka wada siman yihiin muslimiinta halkan waxaan ooga dirayaa tahniyo iyo duco أدام الله لكم الأعياد دهورا وألبسكم من تقواه نورا من العائدين إن شاء الله مساكم الله بالخير وبالورد والعود رشاكم كل عام وأنتم بخير صحة وسلامة أحبابي وأحبائي عساكم من العائدين لكم مني أطيب تحية عبرة مقرونة بالحب والاحترام تحية لو كتب بها الأقلام لانفجر ولو نطق بها الإنسان لانقطع بعظمها وشأنها متعكم الله عمرا مزيدا وعيشا رغيدا وأجرا مزيدا وأياما مباركة وعاما سعيدا وجعل الله عيدكم عيدا مشعورا أين العيد الأضحى فأهلا وسهلا حبانا وعطبانا ومضينا بالتهاني للقريب وللبعيد عيد سعيد ومبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.